ciyaartooyda xulka qaranka ee kubadda cagta dalkeena Soomaaliya ayaa maanta soo gabagabay u diyaar garowga tartanka Olombikada adduunka ee lagu qabanayo magaalada Rio de Janeiro ee dalkaasi Brazil sanadda 2016. ciyaartooydani oo laga soo kala xulay qaar ka mid ah kooxaha heerka koowaad ee dalka Soomaaliya ayaa waxay tababar qaadanayeen muddo ku siman bil, waxaana tababarkaasi bixinayay macallin ajnabi oo ka soo jeeda dalkaasi Uganda. waxaana lagu wadaa in maalinta bari ay u ambabaxaan dalka Rwanda oo la ciyaari doonaan 2 kulan oo ka tirsan tartanka Olombikada adduunka. waxaana safarkaasi iyo kulamadaasi ka wareystay macallinka labaad ee xulka qaranka ee dalkeena Soomaaliya, Macallin Saalax. kulay baa ogtahay diyaar galow xogaa waqti fiican ayaan sameynay diyaar garowsan lagu diyaar garoway ciyaaraha Olombikada adduunka ee under 23 ga lagu qabanayo dalka Rwanda. marka insha Allah kulay waa dareemi kartaa waan fahmi kartaa markii meel loo socdo ama meel markii la aadayo ka hor waa in la galaa diyaar garow in la sameeyo diyaar garow. marka insha Allah kulay diyaar garow intii karaankeena aan waa wadnaa ma sha Allah. Maxamed Ibrahim waa maasantahay aad u maasantahay kulay diyaar garow fiican waa heleen sababtoo ah kulay waan ogtahay hatta waxa socday horyaalkii socday 2014 and 2015 ayaa socday. marka waagii hore waxa dhici jiray xogaa horyaal socon ciyaartooy laakiin hadda alxamdulillah kulay sanadahan la soo dhaafay oo kale ilaa hadda waxa dareemaysaa horyaalkii socdo ciyaartooy xogaa diyaarsan in macallinkii ay u imaadaan oo macallimiinta taay u fududaato xogaa macnaha hoosh ay qaban lahaayeen wixii u fududaato. waxaan ugu maqaalaa macallin xulka qaranka waxa hogaamin jiray macallin kale oo ajaanib ah oo ka soo jeeday Uganda. hadda macallinkan la bedelay asbaabihii loo bedelay oo kale misleedihiin macallinkan uu ka rooyahay kii hore. waa maasantahay kulay macallin waa macallin kastana ama qof kastana bini aadan oo howl qabanayo kulay waxa hooshaas waxa waaye xad ayuu leeyahay qof kastana aqoon u gaar uu leeyahay laakiin waxa ugu weyn waxay tahay qofka nasiibkiisa. macallinkii hore waan la soo shaqeeyay waan arkay macallinkan waa la shaqeynaa waa arkaa macallinkii hore macallin fiican waa ahaa midkan had imaadan macallin fiican waa yahay. marka kii hore nasiibkiisa ayaa saaciday waay marka insha Allah kan waxaan rajaynayaa nasiibkiisa saaciday insha Allah. kulay baan ka fiirisi aqoon ahaan ka fiirisin aqoon kulay macallimiinta kooda sameeyeen kulay footballka laga shaqeynayo markii aqoon noqoto waa afar shay oo physical technique tactique iyo mental psychology ahaan. marka macallimiinta kulay shaqo waa qabanayaan waana fiican yihiin qof kasta shaqada uu qabanayo isqaabka uu qabanayo ciyaartooyga soo u fahmay qaabka nasiibkiisa inuu saacidaa taas waa. marka macallinkan hadda imaadan kulay ilaa hadda kulay wuxuu joogaa 1 bil iyo 20 beri 1 bil iyo 15 beri qof kasta oo bini aadan ama qof kasta oo nafley ah rajo ayuu leeyahay. marka waa dareemi kartaa koox la xareeyay koox la tababaray facility lagu bixinayo wax lagu bixinayo qof kasta hamiga uu leeyahay mid la koobi kara la qiyaas karna ma aha kaliya ma aha aniga inaan maxal Rwanda kaliya aan soo badanayo waxaan rajaynayaa mustaqbalka inaan qayb gali karna duulada insha Allah ciyaaraha adduunka iyo soo kale ciyaaraha Afrika macnaha hamiga ugu weyn aan leenahay waa taas. marka kaliya ma aha hashaan kaliya ma aha insha Allah. marka xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta kulliba dadaalkooda iyo wanaagooda waa sameynaa waana bixinayaan wax kasta oo facility ah ilaa ay xad ma sha Allah. haddana ciyaartooyinka kulliba waa xariisan yihiin ilaa muddo hotel ay ku xariisanaayeen. marka wax la kala karnaa ma jiro hamigan aad ay u weyn yahay mid gaabna taa ma aha insha Allah. kabtanka xulka qaranka ee Soomaaliya Babaay ayaa isna safarkani ka muujiyay inay guul ka soo gaari doonaan. runtii bir waa safreynaa waxaan u safreynaa dalka Rwanda hadduu Ilaahay ka raali noqdo waxaan rajaynaynaa diyaar garowga badan ama juhdiga badan la gelin inaan ka mara dhalino hadduu Ilaahay ka raali noqdo dalkeena hooyo macallinkeena Soomaaliya inaan sharaftiisa dhulka la gelin aan guul wax ku aan keena hadduu Ilaahay ka raali noqdo. waqti fiican ma yeesheen oo aad tababar ku qaadataan aan isku fahantaan ciyaartooydiin maadaama aan ognahay naadiyo kala duwan idin ka soo xulay. runtii naadiyo kala duwan inta ugu fiican ayaa laga soo xulay waayo sababtoo ah waxa laga soo kala xulay Elman, Jenya, Banaadir, Degeda, Hegan. runtii intaas ciyaartooy la isku keenay inta ciyaartooy naadiyada ugu fiican runtii ay sadahaayo maanta waa wax waa keeni karaan ama qaranka Soomaaliya wax uu tari karaan maanta iyo bariba inay wax u tari karaan. runtii aan aaminsanahay ciyaartooyda maanta joogto inaysan dhinacooda dhulka la dhigi karin aanan qalbi adeeg dhabar adeeg waqtigiina la gelin waqti oo iska hal bil way laakiin hadaan sanada hel lehen waa ka si fiicnaa laakiin walka bil aan la geliyay ayaan wax badan ku keeni karnaa hadduu Ilaahay ka raali noqdo. runtii rajadeena aad iyo aad ay u sareysaa waayo sababtoo ah waxaan rabnaa Rwanda inaan guruud ku soo turno hadduu Ilaahay ka raali noqdo dalka Kenya aan home ka noo ahna waxaan rabnaa inaan ugu soo badan hadduu Ilaahay ka raali noqdo. Soomaaliya ma lahayn dawlad dhexe oo shaqeynaysa tan iyo 1991 waxaana muddadaasi aad gudaheeda wali sii soconayay dhaqdhaqaaqyada xiriirka kubadda cagta dalkeena Soomaaliya ay wadeen iyadoo sidoo kale si xawli oo horumar u sameeyay kubadda cagta dalkeena Soomaaliya tani markii la dhigay cawska macmalka garoonka Banaadir Stadium. Maxamed Ibrahim Gabo, Royal TV, Muqdisho.